barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xafiiska maamulka ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu barasaabku ka warbixiyay halka ay marayso wadahadaladii u dhaxeeyay Korneel Siciid Cawil Jaamac Caare iyo xukuumadda Somaliland waxaana uu barasaabku sheegay inay ku dhex jiraan xirayaasha Korneel Siciid Cawil Jaamac Caare isla markaasina ay rajo wanaagsan ka qabaan oo idin kala hadlayo ceeragaba gudaheedii wax shaqaaqo oo ka taagan ma jiraan hordhici hubka waa la keeno waa aragteen wixii kalena odayaal baa ku maqan warbaanu ka sugaynaa marba dee heer bay maraysaa xidhayaashiisii oo dambeeyay hadda ku maqan insha Allah war khayr laanu ka sugaynaa arrinta hore ka timinaa ma xumayno anigu odayaashaydaasaan kalsoonidiisa iyo wixii ku wareejinayay kuwaasa laga doonayaan kala wargno geesta kalena waxa uu barasaabtiin baro ka hadlay gaadiidka tiknikada ee la saaray qoryaha waxaana uu sheegay in Somaliland iyo guud ahaan gobolka Sanaag aan lagu haysan karin gaadiidkaasi Somaliland gudaheeda waxa reeban beel hub ku haysata guud ahaan gaar ahaan gobolkayga Sanaag ama meelaha ku qarsoonaado ama guriga ku xareysnaado wax qori weyn oo tiknika la saaro oo reer haysan kara ma jiro kii xasaystoona iska soo dhiib kii uu hore keeno nabad ku mahadsan tahay kii lagu maqan yahay inuu soo dadaji hawshaas waxaan jecelahay inay naga gabagabowdo anoo ka wakiila xukuumadda gobolka madaxa ugu sareeya in aanu arrintaas qacan nabadgelyo ku qabano gabagabadina waxa uu barasaabtiin mar ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag waxaana uu sheegay in la isku haleyn karo ammaanka gobolka Sanaag dad baa iska jiro iska xamaasada buuro maxaa hebel loo taabtay maxaa hebel loo weerarayo waxaan garanay ku hadlo markan ceergaaba laga hadlayo qofka waxa la sameeyo wax u taraya tayraad la mid ah ku gubto waxa la yaalo wax u taraya ma jirto xumaan iyo colaad iyo cilado ku soo abuuro mooyaan iyo nacayb mooyaan waxa la yaalo waxaad qofka u tartay ma jirto adna xiiqday waxaan kuwana leeyahay carruurtii dumarka la soo abaabuliyo adeerku inuu soo abaabuliyo ka waantooba idinkuna deestakaare ma tidine barto oo maalin walba intaan la idin diraya waxay tarayso horta ogaado qiimeeyo iska fariista dadkaygii baatiin waana la yaabaa tiraan cidileysa ma aragno xaaladana idinka abuuranayo buuqa sameynaya marka waxaan idinku waaniyaa nabadda ha lagu dadaalo nabadda ha loo gargaaro ha la isku waaniyo Adnan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamiga Horyeel 24 TV Ciriga